السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة إلى ونحرسته امتحان إلى عافية حملات كمرال خيال إلى سيا أمين. ما عند تاريخ حقوق بيجان تهاي لواتين لبدي بشي لبيت وانا كنا فرق قرافة حقوق بيجان سديدي بشي لحد وقنات اللي قد الدين سوق على أي شيء نرى ترى إنه باقي إيران إسرائيل جورجيا تقريبا مدافعين مراكب دونالد ترامب ayaa ugu baaqay Iiraan iyo Israa'iil si degdeg ah inay u joojiyaan dagaalka kadib markii labada dhinac mar kale ay isweydaarsadeen duqeymo arrin khatar gelinaysa heshiiska xabad joojinta jilicsan. Trump ayaa qoraalkiisa ku daabacay bartiisa Truth Social ku yiri Iiraan iyo Israa'iil waa inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalka. qoraalka kale ayuu ku sheegay in Israa'iil iyo Iiraan ay doonayaan inay xabad joojin si degdeg ah isla markaana wada hadalladii ugu dambeyn ee nabadda iyo joojinta dagaalka socda. Wuxuu sheegay in heshiiska laga yaabo inuu carqaladeeyo jahli ama nacasnimo siduu hadalka u dhigay. Trump ayaa cadaadiskiisa saaray Israa'iil inay joojiso weerarada ay ka wado Lubnaan si loo helo fursad lagu gaaro heshiis lagu soo afjaro dagaalka ballaaran ee Iiraan la xiriira. Wararka ayaa sheegaya in codsigaasi gaaray heerkii ugu Trump si carar leh heer sare u gaaray. Trump oo carooday uuna ku canaantay ra'iisul wasaaraha hoose ee Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu lagu jiray wada hadal telefoon. Si kastaba ha ahaatee, Israa'iil ayaa axaddii duqeysay xaafadaha ka mid ah koonfurta Lubnaan. Axaddii ay duqeysay xaafadaha koonfurta Beirut markii Maraykanku ku dhawaaqay qorshe xabad joojinta ee Lubnaan ah dhowr maalin ka hor. Dhanka kale, Iiraan ayaa gantaalo ku qaraacday bartilmaameedyo Israa'iil ku yaala, taasoo halis gelisay wadahadallada u dhexeeya Washington iyo Tehran. Laakiin Trump wuxuu ku adkaystay in heshiiska lagu soo afjaro dagaalka weli suurtagal yahay. Waraysi uu siiyey Financial Times ayaa Trump ku yiri arrintaasi wax saameyn ah kuma yeelan doonto heshiiska. Aniga ayaa qaatay dhammaan go'aamada. Netanyahu ma qaadan go'aamada. Sidoo kale, sarkaal sare ayaa wakaaladda Reuters u sheegay in Trump iyo Netanyahu ay yeesheen wadahadal telefoon oo qaatay dhowaad nus saac iyagoo ka hadlay xaaladda colaadda. Warbaahinta Axios ayaa horey u sheegtay iyadoo soo xiganaysa mas'uul Maraykan ah in Trump Netanyahu ka codsaday inuusan fulin weerar dheeraad ah maadaama heshiis wanaagsan la gaari karo. Fox News ayaa iyadana sheegay iyadoo kasoo xiganaysa Trump isagoo leh waxaan Iiraan u sheegay gantaaladii waa rideen. Taasi waxay ku filan tahay hadda ku noqda miiska wadahadallada oo heshiiska hala gaaro. Trump waxaa saaran cadaadis. Tan iyo 8 Abriil waxaa jiray xabad joojin u dhexeysa Tehran iyo Washington kadib dagaalkii ay Maraykanka iyo Israa'iil u qaadeen 28 February, kaasoo sida ay Tehran sheegtay sababay dhimasho in ka badan 3,000 oo qof. Iiraan ayaa weerar jawaab celis qaaday kuwaas oo dilay dad Maraykan iyo Israa'iil
sidoo kale waxay bartilmaamsatay waxayna u sheegtay saldhigyada Mareykanka oo ku yaala dalalka Carbeed. qaar ka mid ah weerarkaasi ayaa sababay dhimasho, rayid iyo burbur xarumo shacabka, taasoo cambaareeyeen dalalka la beegsaday. hadda Iiraan markii la weeraro ayadana waxay weerartay saldhigyada Mareykanka ku yaalo wadamada khaliijka sida Baxrayn, Kuwait, Qatar iyo Sacuudiga. marka waxaa weeyaan jugjug meesha jooga hadda mindi ka afaysa, qaniya ka afaysa. qof hadda wax kugu dhufsadana ku dhufaysaa. Israa'iilna waxay weeraraysaa meelo bartilmaamaysa. Iiraan markay balaastig ay ku duqeynaysaa, tan haddana waxay sii dhimanaysaa saldhigyada Mareykanka oo ku leeyihiin wadamada Carabta. marka waxaa warkaa degdegan inaga soo wadaago. waa in salaamayaa kheyr iyo caafimaad nabadiino. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.